waxaan maanta u ambabaxayaa wadanka isu taga Imaaraadka Carabta oo aan u aadi doono hawlo la xiriira arrimaha ciidanka badda oo muddo 10 sano ah ay laga taageerayso dowladda isu taga Imaaraadka Carabta hawlo la xiriira dhamaystirkooda iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo ISIS iyo arrimo la xiriira horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo hore dalka uga socday iyadana dardargelintooda arrimahaas horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada laftigooda oo aan rabno hawlo badan sidoo kale in laga qabto dalka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha arrimahaas oo dhan ayaa weeya sababta hadda aan socdaalkayga aanu qaadan doono muddo 4 bari ah waxaan rajayn doonaa inaanu la kulanno madaxda dowladda isu taga Imaaraadka Carabta hawshaas inaan kala hadalno hadii la yiraahdo ugu dambeyn waxaan rabaa hadal yar halkaan inaan ka jeediyo ku saabsan xariga boqor buur madow oo lagu xiray Somaliland waxay la tahay aniga runtii isimadu in ay yihiin inay mudan yihiin karaamo iyo sharaf inay mudan yihiin in la dhowro sharaftooda iyo cirdigooda inaysan sax ahayn in nin ismuhu meel tagay dalkiisa kamid ah maxaad u tagtay ismuhu anaga dhankayaga xuduud mara meesha doonaan bay tagi karaan meesha doonaan bayna nabadeynta dalka iyo isugu dhawaanshaha bulshada ay u aadi karaan marka ma garan karo sababta uu ku mutaystay boqor buur madow xarigaas oo aan ahayn inuu yimid dalkiisii meel kamid ah hadduu hadda dib noo yimaadana oo kusoo dhaweynayna horena ugu soo dhaweynay cid kasta oo Soomaali oo wanaag wadana Puntland way soo dhaweynaysaa ama ha noqoto wanaag nabadeed wanaag ganacsi iyo wanaag isu socod bulsho intaba waana soo dhaweynaa hadii la yiraahdo waan ka xunnahay xarigiisa waxaanana rajaynaynaa in xorriyadiisa dib loo siiyo ninka odayga ah